sheegayba wuxuu ku saabsan yahay dib u qaabaynta iyo u diyaargarowga hawlgallada dhammaan ciidamada qalabka sida in warbixin la idinka siiyo meel ay marayso sida aad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed asaga ayaa hogaaminaya dhammaan howlaha aan hadda sheegnay wuxuuna xafiis ka dhigtay taliska oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo toddobaadkan u dambeeyay uu fadhiyay sida aad la socotaan waxaa isbedel lagu sameeyay ama reshuffle lagu sameeyay hogaanada xoogga dalka Soomaaliyeed hogaanada oo tiradoodii ka koobneed markii hore 23 ayaa hadda laga dhigay 13 hogaan teedi kale lagu soo biiriyay dhalinyaro da'yar ah oo saraakiil ah mudooyin 5 sano ugu dambeeyay dibadda wax ku soo bartay si ay uga mid noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed hogaanka wadanka khaasatan ciidamada qalabka sida saad la socotaan madaxweynaha wuxuu tababaro u xiray ciidamo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ciidamadii loogu magac daray 14 October oo tiradoodii gaaraysa ilaa 600 oo ayagana loo diyaarinayo hawlgallada cusub sidaasi oo kale waxaan tababaro u soo xirnay ciidamada danab oo ayagana ka mid noqon doono hawlgallada cusub waxa kaloo la socotaan in u diyaargarowga uu ka duwan yahay diyaargarowgii hore waxaa la samayn doonaa oo madaxweynaha uu amar ku bixiyay in ciidamada hawlgallada aadi doono loo dhammaystiro wixii ay u baahnaayeen oo ay ka mid tahay caafimaadka la helo cusbitaalo mobile ah la helo dhaqaatiir oo kuwa degdeg wax u daaweyn kara iyo kuwa qalliin gali kara marka hawlahaas ay ku saabsan yihiin teedi kale waxaa la diyaarinayaa xerooyin cusub oo ciidamada qalabka sida ay iska leeyihiin hawshaas ayaan rabnaa inaan idinla socodsiino isbedelka wuu socdaa wuuna socon doonaa waxaa madaxweynaha meesha uu fadhiyana waa danta qaranka iyo in dib loogu soo celiyo wadanka amnigii iyo sharafkii iyo kala dambeyntii qaranka Soomaaliyeed oo lahaa ana fursad ka faa'iideysanaya ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan halganka uu hormuudka uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi aad iyo aad u mahadsantiin الشباب وحده ولا ينبرعد ومدشوا وجرت صوت الكلام. الحين ده واحد عينك مسؤوليته